kala kala wareegaya maanta madaxweynihii hore Muuse Biixi iyo madaxweynaha cusub Maxamed Cirro madaxda kale heer qaran maanta xafladan ka soo qayb gashay marti sharafka iyo safaaradaha inala jooga giddigiinba waa idin salaamaya waxaa salaanta leh maanta ugu culus waa dadweynaha Somaliland ee marxalad mawsanaynu joogno maanta ka dhigay mid sharaf iyo qiimo iyo qaali waxaan iska ilaaway madaxda run buu igu jirayaa madaxweynihii hore madaxweyne Riyaale madaxweyne ku-xigeenadii iyaguna xilka soo qabtay kuwa maanta ka soo galay iyo kuwa ka degay giddigiinba waa idin salaamaynaa waana idin mahadnaqaynaa madaxweynaha soo koraya wax badan odhan maayo waayo dawaysurana waxaan rajaynayaa wada shaqayn wanaagsan inaynu wada shaqayno xilku kuguma cusbo xilbi heer qaran kuguma cusbo ama gudoomiye gole wakiilla ha noqoto ama mid xisbiba ha noqoto kuguma cusbo mid fajax ku gelinayana maaha kana kaba sii culus waa waajib cid u qaban lahayd qarankan u qaban lahayd ilaahay maantu ka dhigay inaad qabato hawguuriyaanu kulaan soo dhawow baanu kuleenahay waxaa nagu waajiba waanu ballan qaadaynaa inaanu kula shaqayno ilaahay xilkana ha kuu fudeeyo cid walba oo qaranka ka midina inay la shaqayso waa ku waajib waayahay waxaan kale oo madaxweynaha xilka ka degaya ku awguureynaya marka hore sida uu u maamulay doorashooyinkii cuslaayeen hadda soo baxay si odatinimo ah madaxnimo ah odatinimo ah baad u maamushay waajibkaagii qaran waad gudatay si fiicanna waad u gudatay aad iyo aad baad u mahadsan kii hore ee madaxweynenimada 7 sannadood oo culculus baa ku soo maray waxaan leeyahay 7 culus bay ahaa waad ka soo baxday waajibkaa ku saaraa waad ka soo baxday qaranka kan muddo 7 sannadooda oo culayskeeda iyo daalkeeda iyo soo jeedideeda labada waa u nabadaday aad iyo aad baa u mahadsan ilaahay waa kaa sisaay siin doona wixii aad ummadda u waxay la tahay adigana waxaanu kugu sagooteenna waynu wada joogana kusagootimeyn laakiin waxaynu ku wada noolaanaynaa oday reer oday qaran oday waajibkii u lahaa buta waxay la tahay wax intaa ka badan waan idhaahdaa waa hadal jacayl wey hadal jacaylkana iskuma wanaagsan marka nimanka axsaabta soo maray iyobaa malaa'igaga roonaan lahaa iskuma wanaagsanin aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay
jiddigeedba haynagu gargaaro hawsha qaranka kan aynu u hayno waa intayna madaxda inta dadweynahana waxaan leenahay wardee idinkaan la doortay ee nala shaqeeya annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu intii karaankaya hawsha noo igmateen inaanu si fiican idinku qabanno aad iyo aad baa